qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buuram oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxay maanta raaligelin ka bixiyeen hadallo dhawaan ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo injineer Faysal Cali Waraabe sidoo kalena waxay baaqiyo kala duwan u direen ganacsatada iyo dhammaan ardayda kala duwan ee wax ka barta magaalada Buuram ee deegaan ahaan ka soo jeeda maamulka Puntland oo ugu baaqeen ayaa waxay ballan qaadeen in amniga dadkaasi ay iyagu qaadi doonaan xildhibaanada oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxay sheegeen dadweynaha reer Puntland ee halkan degan ee wax ka barta ama wax ka dhigta halkan ama baamushtarba ku haystana waxaan leenahay cid alliya cid aad halkan magan ugu tiid ma jirto cid aad u daba fadhiisanaysaana Buuram ma jirto nabadgelyadiinana annaga damaanad qaadayna maalmahan ugu dambeysay hadal la warfinayay oo ka soo baxay gudoomiyaha xisbiga UCID anigu gudoomiyaha waxba hadalkiisa ku sii tiigaali maayo dad badan baa ka hadlay laakiin waxaan la hadlayaa shacabka la hadlay reer awdal horta inay arrinka dareen fiican ka celiyaan iyaga looga fadhiyaa waxay joogaan halkii luqadooda laga hadlayay islaam baynu wadanahay midun baa jirto wax weeyaan bulshada ama Puntland ka yimaadaan ama meel kale ka yimaadaan bulshada Soomaaliyeed ee guud ahaan ku sugan geeyiga Somaliland ama gobolka awdal marti kuma ah cidna martuuma aha waxay joogan gobolkoodii ay ma jiraan imikana waan leenahay harayna cid walba way uga hadashay gobolka awdal waa nabadgelyo cid kasta oo deganeyd oo joogtay oo waxa weeye hanti ku lahayd oo waxa weeye horumar ka wadatay oo waxa weeye waxa ka barato inta ay la mid oo annaga meel walba way joogaan kuwa iyo kuwayagu waa isku mid agteeda casiis bay ka yihiin golaha deegaanka dadka nala degan ee ardayda jaamacadaha wax ka barata ama si cid kale nala deganna waxaan u leenahay awalla cabsi aad qabteen hore ma jirin iyo cidina culaadisa imikana waa sidii hore aad joog jirteen baatihiin cid inaga qabta fikir gaar ah ma jirto nagala garab joognaa waxaanu nahay waajibaadkayga weeyii inaanu cid kasta oo soo dhaweyno Soomaaliya oo gobolkan soo booqanaysa ama waxbarasho u timaado ama deegaan u timaadee xaqna looguma laha in lagu booqo ama la jiirjiiro taana intaasan kaga tagayaa nin kale oo isaguna xalay ka hadlayo afayeenka madaxtooyada Puntland ahaana waxaan leeyahay inama aad u turanaysa iyo carruur aad u turanaysa ma jirtay deeriya tahan u maleynaya waxa doonaysaa in carruurta masaakiinta ee halkan jooga in gacan inta loo qaado Puntland sare kiciso danahaaga ku jira inaad walaalaha gowracdo danahaaga ku jira walaalahaaga gobolka awdal jooga in guryaha lagu shiido dantaada ka hadashaan leeyahay ya